السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada my channel. maanta waxaan idin wadaagayaa sida loo sameeyo blueberry muffins. waxyaalihii aan ka sameeyay iyo sida u diyaariyay daawasho wacan. baaqulgaas bur ayaa iigu jira laba koob oo burka cad ah oo balaynka ah. waxaan halkaa ku haystaa almond flour, burka laga sameeyo almondka oo koobka halfkiis. cuntadan aad ay iisu u tahay, waana cunto fiican oo aad iyo aad uga maarmi karto waxyaalo badan sida store-ka kan aad ka soo gadato oo kale. ilmahana aad ugu fiican runtii. hadda waxaan isku qasanayaa cuntooyinka inta qalalan. burkii iyo almond flourkii iyo cusbo. halkaas waxaa ku jira baking soda, hal qaadada yarta amugeed, qaadada yarta cusbo, intaas isku qasayaa oo si fiican isku dhexgelinayaa si ayna kuskus iga yeelanin, si fiican isugu kay dhexgalaan. markay marti ku imaanayso kaleeto story ina aadid ma aha runtii. cuntadan waxaa waaye inta shaah ku saaran ayaa kasoo tuuri kartaa. dhinaca u dhiganayaa baaquli kale ayaan halkaa ku haystaa oon ku qasanayo intii qoyaneyd ingredientiga qoyan. koob sokor halkaas iigu jira kusoo shubtay, koob sokoraan ka shubtay meeshaas. waxaa ku darsanayaa labada xabo ukunta. aad iyo aad ay caafimaad badan tahay, waana cunto aad ogtahay waxaad ku dartay oo ku jira. ukunta aan isticmaalayna waa organic, burkaygana waa unbleached flour. hadda sokorta iyo ukuntaan si fiican isku dhexgelinayaa. runaanta cuntadan uma baana mashiin aad ku sameyso. baaquligaas iyo qaado haddaa haysatid iyo ingredientiga waxaa waaye wax kale uma baahnid. koob waxaan ku darsanayaa saliid, koob saliidaan ku darsanayaa. meesharinkaa baana isticmaalaa mar walba si ay wax walba iigu ahaadaan cabirka sida loogu talagalay. si fiican uu kugu soo baxaa markay cabira isticmaasho, koob cabira isticmaasho. hadda koobkaas waa measuring cup. saliidda isticmaalayo waa olive oil, taas ayaan guriga ka isticmaalaa. saliid alla saliidda ku taala ayaa isticmaali kartaa. also butter isticmaali kartaa. si fiican isku dhexgelinayaa. saaro kale inay ku ahaato waa smooth ay ku ahaato oo saas ma aragtay ku ahaato. maasha allah. qaado vanilla aan ku darayaa. vanillaha caraf ay u sameynaysaa, vanilla extract. caraf iyo flavor layaan ka rabaa vanillaha. haddana si fiican isku dhexgelinayaa intaas. hadda ukuntii, sokortii iyo saliidii waxaa dheer vanillaha halka qaado. halkaa waxaan ku haystaa waxaan ku haystaa koob oo yogurt ah, yogurtka balaynka ah, iyo koob blueberry also. blueberry gadaana uga darsan doonaa. fruit alla fruitka ku yaala ku darsan kartaa oo ma ahan blueberry kaliya isticmaashid. sweet potato xataa waa lagu sameystaa. waxaa lagu sameysan karaa oo kaleeto carrots oo hooshay
waxyaalo badan aan ka sameeyay aniga aan ku darsadaa a lot of options ku darsan kartida taalo oo jirto waxaa kaloo ku sameysanaysaa apples si yar u jarjarta waa ku darsan kartaa strawberry waa ku sameysan kartaa xitaa hadda koobkan blueberry ga haystaa oo fresh ka ah waa soo nadiifiyay hadda waxaan isticmaalayaa midka fresh ka isticmaalaa aan isticmaalayaa micnaha hadda waxaan ku darayaa cuntada intii qoyo ee qalaleed aan ku soo darayaa burkii iyo cusbadii blueberry ga midka frozen ka xataa waa isticmaalay waxba isma there's no difference waxba isma dhaamaan it's the same qasitaanka waaye meesha oo wax ka khaldi kartid wax kale oo ka khaldami kara ma jiraan hadii aad raacdo cabir hadii aad laakiin qasitaanka waa inaad si fiican uga taxadarto oo tartiib ah u qasto xoog inaadan isticmaalin iyo mashiintoona aad intii burka uu ka dhamaado aad qasto burka cadaantiis inta ka weydo oo si fiican isku dhex galaan baa saasaad u gadgadinaysaa inaad side u mix gareyso ma aha hadii kale sidii la rabay kuuguma soo baxaayo oo uu ka adkaana micnaha saano kale inuu ku ahaado waaye kaana jilcanayn oo saaid u jilcaneen saaidna uuna u qaleelkaaga ahayn burki iyana ay isdhex galaan micnaha iyo waxyaalihii kaleeto hadda waxaan haystaa ice cream scoop ayaan ku qaadayaa ice cream scoopka laba siba uu kugu fiican yahay midda koobaad inaad si fiican dhaqso ku qaadaa oo waa si fudud kugu qaadaa si fudud oo kugu qaadaa waana iskula ka ekaanaya micnaha kulli saasan ku soo dhameynayaa kana saan ku soo baxay ovenka ayuu diyaar u yahay sida uu ku soo baxana waan la wadaagi doonaa ovenka uu isi kululaanayay 350 30 daqiiqo ayaana bay gareyn doonaa ما شاء الله هذا سانو igu soo baxay weelkaana ku soo wooden bowl-kaasan ku soo transfer gareystay aad u carfaaya runtii caraf iyo hada silicone waa geedaha yararka ah oo waxay la yimaadeen muffin tankaas blade-kan la gelina ovenka la yimaadeen waana reusable oo wax ka dhamaanaya ma ahan ma sha Allah saan ku soo baxay idinkana tijaabiya waa kana waa snack healthy ah oo ogtahay wixii aad cuntada aad ku dartay waxyaalo ingredients-ka dhan aad taqaanid ilmaha caanay ku qaataan oo caano iyo asaga barqadii oo kaleeto ama after waxa u sameynaysaa quraacda marka quraacda oo kale ka dambe hada aniga coffee baan ku qaadanaa halkaas xabo ilmaha laakiin caanahooda juiceskooda ruux walba wuxuu rabo casriya ka soo tuuri kartaa intaana cashada la gaarin ama subaxdii quraacda ka dambe ayaa u sameyn kartaa oo ma sha Allah ka faa'iideysta ilmaha hooyooyinka u fiican tahay runtii oo maamooyinka ilmaha haysta u fiican tahay ilmaha yararka waa cunto oo gacanta lagu qabsan karo oo aad u fudud ma sha Allah barqadii ama galabtii casriye daawasho wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh